Waxaan ka mid ahay gabdhaha ka ganacsadaan xerada qaxootiga Ifo. Waxaan dareemaynaa baryahan caqabado badan oo ku imaata ganacsiga. Shaqo la'aan, waxaa waaye maryihiisa u soo qaadnay ilaa hadda way noo yaalaan. iyadoo maalmo kooban oo keliya ay naga xigto munaasabadda ciidul adxa ayaa waxaa ganacsatada ka ganacsada suuqa dharka ee xerada qaxootiga Ifo waxay si weyn uga cabanayaan suuq xumo baahsan oo saamaysay iibka dharka. Ganacsatada ayaa sheegay in sanadkan ay aad u yar tahay dhaqdhaqaaqii macaamiisha islamarkaana aysan jirin dad badan oo wax ka iibsanaya marka loo barbardhigo xilliyadii hore oo suuqu ahaa mid aad u camiran. Waxaan ka mid ahay gabdhaha ka ganacsadaan xerada qaxootiga Ifo. Waxaan dareemaynaa baryahan caqabado badan oo ku imaata ganacsiga. Shaqo la'aan, waxaa waaye maryihiisa u soo qaadnay ilaa hadda way noo yaalaan. Waxaa waaye ciidihii hore iyo ciidaha hadda tan maanta aan ku jirno way kala duwan yihiin, aad iyo aad ay u kala duwan yihiin. Xaaladaha qaxootiga weli waxaa sababaya aan ku jirnaa hadda. Marka aad iyo aad walahi qaxootiga waxaa waaye u sii daba dhamaanaya. Meesha u dambeysa aan maraynaa. Marka dharka way iska yaalaan, wax naga gato. Bulshada markay wax soo galaan oo ayaga ay wax soo galaan anaga noo keenaan, ay naga ganacsanayaan, ay wax naga gadanayaan. Laakiin hadda ciidihii hore ciidan isma laha. daawadayaal waxaan joogaa bartamaha suuqa xerada qaxootiga Ifo gaar ahaan suuqa lagu iibiyo dharka. Halkan waxaa ku sugan Bashiir oo ka mid ah dhalinyarada ka ganacsata dharka. Bashiirow marka hore ku soo dhaweynayaa soo dhawow. Bal waxaad warbixin kooban aad naga siisaa iibsiga iyo dharka xerada qaxootiga Ifo xilligan aan joogno. marka hore macallin waan ku dhowahay miidiyaha iyo warbaahintaada inuu suuqa macnaha dharka ama suuqii laga gadanayay calalada oo dadka isku diyaarinayeen ciidii kala duwan la joogta adiga iyo kaamiradaada waana arkaysaa farqiga u dhexeeyo ciidihii hore iyo ciidan taas aan dhihi karo waxaa jiro dhaqaale xumi aad u baahsan taasoo loo sababeynayo kala qaybiga macnaha qaxootiga la kala qaybiyey oo dee qaarna laga dhigay category 1 category 2 intay dharka gadan lahaan ama ku ciidi lahaayeen nolol maalmeedkii iyo ciddii iyo wixii kale ku kharash garanaya. waxaan ka ganacsadaa dhar maasha allah alxamdulilah ciidan aad baan u faraxsana waa ciidii weyneed marka maasha allah aad buu ganacsiga waxa way noo kala socdaan aad baan u wanaagsan maasha allah. waxaan ka mid ahay dadka bulshada ku dhaqan Ifo waxaan ahay dad ganacsado dharkan aad u jeedin sidoo kale waxaan u soo dhow ciidul adha sidoo kale maalmahan waxa lagu jira maalmihii ciidi insha allah waa soo dhaweynayna ciidan waa ciidii hore ciidan isku mid maaha sidaa u jeedin ciidan way ka duwan tahay ciidii hore sababtoo ah ciidan waxaa waaye ciidul arafa sidoo kale suuq ma jiro suuq ewer waaye. ganacsadayaasha Ifo ka mid ah waxaan leeyahay ciidan diyaar garowgeeda iyo ciidihii hore isku mid maahan ciidan aad bay u liidataa magaalada suuq xumi waa jirto sida hore maahan suuqan inkastoo bishii ramadaan bil barakeysan oo ramadaan ay ahayd bishan isku mid maahan sidan bishan carafo iyo bishii soon isku mid maahan bishan carafo aad bay u liidataa magaalada dadkii socodkoodii sidii ramadaanka kale maahan. ciidan ciidul adxa isku diyaarinaynaa diyaar garow aad u weyn isku diyaarinaynaa marka la fiiriyo ciidii hore iyo ciidan waxa u dhaxeeya farqi aad u weyn kaasi oo sababtay sarakicitaanka mise shidaalka la dhihi karo ma aqaan dadkii oo dhaqaale xumo soo wajahday kulley hadda ayadoo ciidul adxa ay hal beri ka dhiman tahay suuqi waa kana stiil faaruq waa sidii horeeta maahan marka taasna waxaa sababaan leeyahay macnaha dhaqaale xumada ee magaalada ka jirto. waad ujeedaa magaalada maalinta ugu dambeysay waxaan ku jirnaa ciida magaalada dhaqdhaqaaqeeda waad la socotaan sida hore ma ahan ciidan iyo ciida hore iyo ciidan way kala duwan yihiin ciida hore lamid ma ahan. horta ciidan ciidii hore isku mid maahan tii hore ciid weyn ee dadka dhan wada weynayeen dadka dhan waa wada laakiin dhalinyarta hadda wax beenan jirto magaalo xumo iska jirto dhaqaale xumo jiro qaxootiga uu sii halaabaya saas ay tahayna ilmihii yaryara dharban loo magaayo dadka weekina waxaan ka gadanaya ku dhahaan way ku rafaadinayaan hadda dhibaato soo jirta laakiin sidoo kale alxamdulillah baldega ciida oo diyaar gareynaa marka ciidana waxa waaye ciidii
qaar ka mid ah ganacsatada ayaa tilmaamay in duruufaha nololeed iyo dhaqaale yari ay sabab u yihiin hoos u dhaca iibka iyadoona qoysas badan ay mudnaanta siinayaan cunno iyo baahiyaha kale ee muhiimka ah halkii ay ka iibsan lahaayeen dhar cusub. marka saas loo kala qaybiyo qaxootiga dadka marka waxay noqdeen isku mid maahan qaar baa min ayagoo category 1 qaar category 2 qaar category 3 dadna marka waxay la daal dhacayaan nolol maalmeedkii daal dhacayaan qof arki ka category 3 oo waxba aan haysanin oo dhankan hay'adaha wax caawin aan ka helin laga yaabo marka in wax yar ama loo soo diray ama family-kii waxa uu macnaha intay dhar ku gadan lahayn ama ku ciidi lahaayeen nolol maalmeedkii iyo ciddii iyo wixii kale ku kharash garanaya. Dhanka kale harqaanlayaasha ayaa sidoo kale dareemaya isbeddel weyn oo dhanka suuqa ah iyagoona sheegaya in ciidan ay ka duwan tahay ciidihii hore isla markaasina aysan jirin wax macaamiil ah. ciidaas saaid ugu dadbaantay population kala laakiin ciida dadka iska yaryahay ku diyaarinayna ciidan iyo ciidi kale markay isku barbar dhigo ciida hore oo ramadaanka ka shaqo badneed tan wallahi waa iska roontahay laakiin ciida hore ka shaqo badneed. Suuqa dharka ee xerada qaxootiga Ifo ayaa ka mid ah goobaha ugu mashquulka badnaa xilliyadii ciidaha balse sanadkan ayaa u muuqatay jabi ka duwan sanadihii hore. Xasan Nuno Hiloole Xasan Macalimow suuqa xerada qaxootiga Ifo. soo ma aragtaan waa degdeg waa ammaano waa fudayd waa hal martaaba oo keliya ku bixi mushaaraadka shaqaalaha si fudud oo hufan adigoo adeegsanaya tiknoolajiyada casriga ah dahabay hal taabasho oo keliya.